السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور دواد يوتيوب كنا عابي تكنولوجي في الانستيتيوت. halkan waxay nooga bilaabantay koorsideeni certified ethical hacking ama Kali Nagas. waxaan casharkan ku baran doonaa haduu Ilaahay ka dhigo sida Kali Nagas loo install gareeyo software-ka ama application-ka VMware Workstation. kusoo dhawaada casharka. marka koobaad si aan ugu install gareyno ama ugu duubno virtual machine-keena ama workstation-keena VMware-ka waxaan oranaa create new virtual machine ama waxaad tiraysaa file waxaad oranaysaa new virtual machine. marka tagto waxaad oranaysaa custom inaga maamulayna waxaad oranaysaa next kadib halkan waxaad ka dooranaysaa workstation-ka version-ka ugu dambeeya next baad leedahay. halkan waxa weeyaan ay sida hadda wad ku soo dalacaysaa mise imikayn ku dalacnaa waxaan oranaa imikayn ku dalacnaa image-ka browser baad leedahay. halka ay sidoo ku taalo ayaa tagaysaa ay sidoo aniga waxay taallaa halka aniga ku soo touch gareynaya imika ay sidoo uu soo qabtay halkan waa halka ku dhigayo weeyaan location uu ku dhigayo weeyaan ama ay ku taalo sidoo ama ay ku taalo wala image ayuu ku sheegayaa. waxaad leedahay next halka waxaad oranaysaa ka xad ku duubayna waa maxay waa Kali Nagas ama waa Linux distribution-ku yahay baad halkan ka dooranaysaa waa Debian marka version-ka ugu dambeeyaad ka dooranaysaa next baad leedahay magac ula baxba ku waxaan oranaynaa Kali Nagas. halkan waxa weeye distribution-ka lagu duubayo hadan browser-na wuxuu ku duubayaa documentiga folder-ka virtual machine ku duubaya halkan waad ka akhrisan karaysaa wuxuu ku yiri documentiga lagu duubayo virtual machine folder-ka la dhaho ayuu sameysanayaa. waxyaaluhu qaban jiray baan ku yiraahdo casharkeena chapter suugaan ku soo qaadanay hypervisor-ku resource-kii kala qaybinaya. marka next baan leenahay processor-ka waxaan oranaynaa inta u dhaaf memory-ga waxaan oranayaa 2 GB u dhaaf waxaan oranayaa halkan waxa weeyaan si uu Kali Nagas markaynu isticmaalno ama aynu ku duubno wuxuu u baahan yahay ama aynu u baahannahay inaynu internet-ka ku isticmaalno. marka net baad dooranaysaa si internet-ka u gaadho hadhow insha Allah. next baan leenahay input output-ka waxaynu ugu talinayaa taa inaynu doorano next baan leenahay nooca disk type-ka wuxuu yiri kaasa recommended next baan leenahay waxa weeyaan halkan diskiga new disk noo sameey virtual diskiya next baan leenahay halkan size-kaas aynu u deenayna capacity-ga marka size-ka u deena waxaan leenahay single store si aynu hadhow noogu fududaado inaynu mar delete gareyn karayno folder-ka. next baan leenahay hore ugu soconaynaa halkan wuxuu yiri sumadaas loo sameeyay VMDK ayaa loo sameeyay kana waa magaca loo soo baxnay inta markaan sameeyno xoreyna next halkan waxyaalaha weeyaan aan soo qabanay oo dhan buu inoo sheegayaa hard disk-ga 20 GB baad dooratay memory-ga 2 GB network adapter-ka NAT waad ka dhigtay waxyaalahaas oo dhan buu sheegay finish baan leenahay halkan inoo soo galaya marka waa Kali Nagas. marka imika seen shaqadeena hore ugu sii soconaa insha Allah waxaan raaynaa maxay power on this virtual machine waxaan raaynaa okay buu sugayaa baynu sugaynaa insha Allah. marka koobaad graphical user marka koobaad waa nigii labaha ballon install gareynaya marna waa GUI midna waa CLI install haddaad doorato hoose haddaad doorato install waxa weeyaan CLI igu install garee laakiin anagu waxaan dooraynaa graphical install inter baan leeyahay waan yar sugaynaa insha Allah markuu ugu gudbayo waan yar sugaynaa. marka installation-kiisu aad buu dheer yahay casharku uu dheeraanaya insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo marka waan yara boos gareynayaa marka koobaadkii wuxuu yiri language-ka dooro language-ka English baynu dooraynaa next baynu leenahay wuxuu ku yiri location-ka doorto joogto ama imika waxaan ku daysaynaa kiisa default-ga United States baynu ku daysaynaa next baynu leenahay wuxuu ku yiri keyboard markasta ka kala soconaysa marka configure keyboard marka American English baynu ku daysaynaa keyboard-keena next baynu leenahay imika wuxuu configuration ku sameynayaa maxay waxyaalaha aynu soo qabanay oo dhan hard disk-ga waxyaalaha oo dhan media oo dhan ayuu installation ku sameynayaa. marka waynu yar sugaynaa insha Allah halka ugu gudbo waayahay imika muxuu ku marayaa installation media ayuu wali ku jiraa retrieving buu wali wada sameerti waynu yar sugaynaa Allahumma salli ala Muhammad waynu yar sugaynaa inta dambe baa yara dheer laakiin intan hore waa iska click waka imika uu dhameeyay components-kii uu lahaa installation media oo dhan uu dhameeyay
halkaynu uga gudubno ayaynu eegaynaa weli detecting buu sameynaya hardware-kii halkan ay kula socon iminka qaybtii network ugu gudbay ib version 6 buu marayaa dhcp-gii baa ku xiga isaguna waan sugaynaa wakaa dhcp-gii markuu dhameeyo wakaa waay host name-ka maxaad ula baxaysaa waxaad ula baxaysaa kaaligaagaa soo u dayso ama waxaad doonta adigu ka dhigo next baynu leenahay domain name haddaad haysatay halkaa waad gelinaysaa haddaan haysana waa optional waad dhaafaysaa next baynu leenahay configure network wuxuu ku user u sameeyay userka adigu magaca baad ula baxaysaa userkaaga ana userkaasaan ula baxay next baan leeyahay username-kii wuu soo markaa ii soo qortay haddana iminkaan soo sameeyey next baan leeyahay password u sameey baa lagu yidhi password baan markaa u sameynayna haddii ilaahay ka dhigo laba jeer ku celi baa lagu yidhi aniga ku celi passwordkaaga markaa waxaad hubinaysaa inuu smart garaynayo next continue baan odhanayaa iminka cloggii buu marayaa cloggii ayuu configure ku sameynayaa wuxuuna weydiiyey halkan joogno stringkaasaynu ku daysanaynaa stringkaasaynu ku daysanaa weli cloggii buu configuration ku sameynayaa iminka muxuu gudbay detect diskigii partitionadii buu iminka sameysanayaa partition diskigii buu sameysanayaa partitionadii ayuu iminka sameysanayaa waynu yar sugaynaa insha allahu laba meelood unbaa ugu yaraa dhaadheer labada meelood baan rajeynayaa inaan casharka yara hakiyo marka waxaa nagu yidhi partitionka waxaasoo dhan buu ina siiyey mana wal haddaad tirahdo waxa weeyaan anaa maamulaya partitionadeeda laakiin haddayn taa dooranno innaga markaa waa optional waa taas waxa weeyaan adigu intii aan soo samaysano dhan noo maamul waxaan odhanaynaa wuxuu yidhi 12 GB ayaad samaysatay oo firmware-kaaga markaa taasaad ku dhaafaysaa continue baan odhanaya partitionadii oo dhan buu ku yidhi hal meel isku kaayo ururi recommended weliba taas inuu gulisi tiriyay soo ma aragti continue baan odhanaya marka intaasoo dhan buu inoo sameeyey hal GB wuxuu siiyey swapkii 20 GB na wuxuu siiyey maxay hard diskigii primarygii marka waxaan odhanaynaa finish markaynu waxaan odhanaynaa maxay continue marka halkan waxa weeyaan halka daaqada waxa weeyaan partitionada asoo sameeyso dhan miyaan ku save karaynaa mise kuma save karaynaa no hadda tirada way ka baxayaan marka yes baan odhanaynaa continue baan leeyahay partition diskigii ayaynu weli ku jirnaa marka halkaas yara dheer inta casharka uu wado ama installationka uu ku sameynayo waan yara hakinaya soo noqod wanaagsan insha Allah way halkan markuu ina keenay waqti dheer kadib waxa weeyaan software selection-kii qaybtan waxa weeyaan user interface-kii marka waxa recommended inta uu ku calaamadeeyay inaad continue ku tiraado haddii aad kuwa kala dooratana wuu kugu shubaya laakiin waxa recommended kuna software culus waxa recommended inta uu nugula taliyay user interface-kii inaanu ka doorano waxaan odhanaynaa waqti badan kadib continue baynu leenahay muxuu imika ila maraya install software-kii wuu ku jiraa tirada marka halka ku taala 2570 markuu tiradan gaarsiiyo ayuu buu dhameynaya time-ka uu noo qabtay smart marka waynu weli boos gareynaa soo noqod wanaagsan insha Allah way isku soo noqod wanaagsan imika waxaanu maraynaa install grab bootloader-kii yes baynu odhanaynaa no ma dooranaysid yes baynu odhanaynaa continue baynu leenahay halkan kaali naga isku wuxuu isticmaalaa diskiga magaciisa waxa la yaqaanaa diff/sda taa hoosaad dooranaysaa continue baynu leenahay installation-kiisaas inoogu dhammaaday intaa markuu dhameeyo wuxuu noo soo qorayaa finish finish the installation waxaan isla eegaynaa ama habkan waxa ku xigi doona isagoo ina geynaya qaybtii userkii iyo passwordkii aynu gelinaynay kadib waxaan uga sii gudbaynaa insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo qaybtii dashboardkii intaa yar baynu yar sugaynaa running buu weli wadaa update buu sameynayaa laakiin installation-kii software-ku saas inoogu dhammaaday adiguna insha Allah waxaan rajeynayaa inaad soo raacayso step-ka aan sameeyey aysadana waxaad kala soo degaysaa chapter-ka waata ku jirta qaybta installation-ka link-gun baad ku dhufanaysaa habkii aan soo maray oo dhan waa sameynaysaa insha Allah waynu yar sugaynaa intaa markuu yar sameeyo waxaan diidayaa videogu inuu yar dheeraado waayo imika wuxuu maraya 9 minute waan yar sugayaa insha Allah
laakiin wax kale installation inoo haray ma jiro. intaa yar intuu dhammaynayo waan yara hakinaya videoga waan isku soo noqonayna insha Allah. way installation sidaa markuu nagu dhameeyo imika halkaa wuxuu nagu soo qoray finish the installation waxaan odhanaynaa continue toos buu ka nagu dhameeyo insha Allah. waxaan rajaynayaa inaad adaguna habkaa soo raacayso waan yar sugayna kaalay nagaski halka minute uu hoos ka tirinayaa 1 minute uu maraya oo ka dhameeyay waan sugaynaa qaybtii waxayna geenayaa maxay ama waxaan uga sii gudbaynaa qaybtii userkii iyo passwordka aynu galeynay aan soo samaysanay kadibna waxaan uga sii gudbaynaa interface-kii guud ama dashboard-kii kaalay nagaski sumadiisii wata waan sugaynaa wali uu soo kacayaa userkaa soo samaystay baad gelinaysaa halkaa xaggaa sare userkaa soo samaystay caabi buu ahaa passwordkiisina iminkaan gelinayaa bismillah login baan odhanaya. marka sidaasuu casharkaasi noogu eegyahay qaybta installationka weli noomuu gelin waynu yar sugaynaa wakaa uu inoo dhameeyey installationkii wakaa. marka insha Allah saasaynu isku ogaanaynaa casharkaasi intaas inoogu eegayay qaybta installationka wixii intaa kasii xigay insha Allah waynu qaybtii kale ayay sheegay tuulashu waa kuwan ama aan chapter 1 keeni kusoo qaadanay information gadarina dad doonaysa waxa soo tuula baa ku jira waxyaalaha soo dhafaan oo vulnerability analysis waxyaalaha soo imaamka la isticmaala waxyaalaha soo dhan waan baran doonaa insha Allah. casharkaasi intaas inoogu eegyahay casharka xiga intaan ku kulmi doono xarajeynaya isku soo noqod wanaagsan soo aan casharkan asxaab badan u gaaro xarajeynaya inaad share garayso like garayso wixii comment inaan la soo wadaagto. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.